arinta ku saabsan aniga mawduuca uu iga hadlay ee uu yiri cali wajiza wuxuu yiri kitaabka quraanku ma aha dastuur iyo manhaj iyo qaamuus dawladaha nidaamkooda laga qaato uu yiri hadalkaas horta wuxuu ka soo xiganaya qayb yar oo dhalinyaradu ay intay jarjareen hadal aan ka jeediyay munaasabada wasaaradda dastuurka ay qabatay culimadu ay fadhiday aan ka jeediyay sheekh bashiir inuu fadhiyay soo u sheegay waa ka muuqata suurada warkaas anigu meesha aan ka iri wuxuu ahay warka soo socda marka laakiin waa lagu ciyaaray waa la jarjaray waa la talfiiqiyay laakiin macna iyagu ma fadhiyo anigu maalin kasta mawduucaas ka hadlaa muxaadarooyinkayga iyo khudabteeda jimcada xasaan oo saaxada laga aqoonin ayaa 80kii iyo maaragtay 8 iyo 7 iyo 9kii dawladdii maxamed siyaad barre madaxweynaha ka jirta anigu mawduucaas ka muxaadaray jiray khudabna ka akhri jiray ilaa haddana waa yaaliin wixii aan ka iri waxa weeyaan waxaan leeyahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waa labada masdar islaamka uu leeyahay ee laga qaato shariicada iyo aqeedada iyo akhlaaqda iyo mabaadiida iyo maaragtay ahkaamta iyo dhammaan wax kasta oo nolosha muslimiinta ku tacalluqa ayaga laga qaataa ayaga ayaa manhajka nolosha muslimiinta ah haday taa rasmiin dawlad iyo haday taa shacab tahay taas horta waa mulakhaska haday saas tahay marka maxaa dadka loo ogol yahay inay sameystaan maxaasa kitaabka iyo sunnada si toos ah nusuusta quraanka ay uga hadlaysaa arinta aniga aan bilaabay ma culimadana ka hadashay culimadu waxay yiraahdeen al-imam ibn qayyim oo kamid yahay fi as-siyasa shar'iyya wa turuq al-hukmiyya iyo غيرها meelo badan al-mawardi iyo rag badan culimo badan oo siyasa shar'iyya ka hadasha waxay yiraahdeen marka la leeyahay shariicada lagu dhaqmo xasan waa ogyahay culimada dhan waa ogyihiin waxa laga wadaa in shariicada islaamka lagu dhaqmo macnaheedu waxa weeye in dadka muslimiinta aysan ku dhaqmin xeer iyo dhaqan iyo arin haba yaraatee ka hor imaanaysa shariicada islaamka wixii shariicadu ay xadiday sidii xuduudda sharciga iyo arrimahan kale faraha badan oo akhlaaqiyadka iyo cibaadaadka iyo aqaaidka iyo ahkaamta sharciga ee nusuusta ay ku soo aroortay si cad ay ku soo aroortay siday taa loogu dhaqmaa waxyaabaha ijtihaadka gali kara oo bani aadamku ku ijtihaadi karo sida umuurta adduunyada ku tacalluqda iyo idaaratu dawladda nidaamkeeda wasaaradaha sida intay noqonayaan dawladdu maaragtay intay golayaasheedu ka koomayaan xilliyada doorashooyinka u dhacayaan siday u dhacayaan nidaamka muruurka nidaamka maaliga ah wixii aan ku tacalluqin alxaal wal xaraam ee ijraa'aati ah oo idaari ah iyo wax kasta nidaamka beeraha cimaaratul ardi waxa asal u ah قول الله تعالى قرآنك آية أصله مقاصد الشريعة الإسلامية كجرتها الدنيا وحي كتعلق أولا الله وحي جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آية داسو وآية عامة وحي الشريعة الدين كتعلق علماء ويدية وي وحي عافمات كتعلق الضباء ويدية وي وحي إنجنير كتعلق إنجنير ويدية عدو البش هوش أي تقانو أو أي كتها أهل الاختصاص أي الله قدم بينها وانا اوجيهنا حتى علماء waxay yiraahdeen gaalku tabiibka hadii uu warbixin oo soo qoro dibbi ah maahirka ah hatta ahkaamta sharciga ayaa lagu rafacaya sida soonka kale qofku mas'uul ka dawira ma soomayo hadii uu marka limaada laanahu waa ahlu ikhtisaas fasalu ahlu dhinaca soo galaya marka waxa cilmiga laga fiirinaya shakhsigiisa la fiirinaya aqoontiisa marka taas waa mid labaad hatta ahkaamta qadaha taala waa ogyahay xasaan iyo غيرkiisba waxa loo qaybiyaa uqubaadka xuduud sharci ah iyo qisaas iyo ahkaamtiisa labadaba si cada ayadu u sheegeen iyo ahkaam inta badan taaziir oo la yiraahdo al-hukmu hukmu Allah fiha fima yarahu al-qadi wixii qaadigu uu arko waxa la fiirinayaa urfiga waxa la fiirinayaa xaaladaha jirta amniga la qiimeynaya markaas uqubaadka sharciga oo cadeeyay ayadoo laga duulayo maqaasidaas ayaa waxa la keenayaa uqubaad taaziir oo zaajira oo reebaysa inta badan uqubaadka qaybta xuduudda iyo qaybta qisaasta waxa ka badan qaybta تعازيرته وانت بدن كل اجتهاد كقضاده والحكم فيما يراه القاضي سيده فقادو كيرهن ارمها الدنيا ده انتم ادرى بدنياكم مني النبي صلى الله عليه وسلم ارمها بدن ايا لو يدو ليرو ارنتا انا وحي الهي كو سو دجيا ما سوا wax ra'yi wixii ra'yiga waa laga niqaashi jiray mararka qaar koodna iyagu dhihi jiray si arinta timirto kaleeto markii la tabiirka lagu sameeyay ama la uur saaray marka arimaha ku saabsan nidaamka dawladda si loo kala wadaayo waa la yaqaana hatta علماء التاريخ الإسلامي وهي كشك يعني وذوقيهن ذكر وجهين علماء سيد عمر رضي الله عنه فتوحات كزمن كيس أو بلود الخلفاء الراشدين بك لقى الله كذي من الدولة الأموية يصير ما يصير إلى عباسيين تو أي قريب كم من السيوة ذين مركز ثقافات كإسلح قالين ومذيه غير فرس طبعا سيد عمر وحوقبته مصر هي الشام هي العراق هي إيران لكم فارس الهجري xilligiisa la qabtay marka ummadii deganaayo dhan oo Kristan qaar ay ahaayeen Buddhist balka la yiraahdo Majus sidii maarta Iiraaniinta kale iyo Furusto qaar Kristan ay u badnaayeen qaar ay wax kale aaminsanaayeen
kulligood islaamka inta badan soo galeen markay soo galeen marka dhakhaatiir bay lahaayeen injineer hay lahaayeen filosofi hay lahaayeen cid walay lahaayeen waxaa la fasaxay in la turjumo culumta naaficada ah waxaan nacfi lahayna meel la iska dhigo walidaalika culimmadu waxay sheegaan idaaraadka maamulka iyo caafimaadka iyo injineerinka waxyaaba badan oo la turjumay bay ka mid ahaayeen falsafada qaarkeed xataa waxyaabaha cilmul kalaamka markii dambe qaar ay ka dhigdeen waxba laakiin taas qiimo ma la siinayn laano macno weyn ay leedahay falsafadu laakiin saddexdan cilmiyo cilmiga idaariga iyo cilmiga tibbiga iyo cilmiga tajribiga ah oo injineerinka oo la yiraahdo asagoo aqaaidka iyo afkaarta shaqo kuma leh waa umuur maadiya oo baxti ah oo qof kasta aqeedo kasta leedahay adeegsan karto ayaa iyadoo daa'irada islaamka la waafajinaya ayaa la turjumay oo la nidaamiyey taasaa marka dowladda islaamka lagu nidaamiyey dabcan sayid cumar nidaamka ciidamada iyo mushaaraadkooda iyo si loo tartiibina asagaa bilaabay mushaar bixinta asagaa tartiibiyey ilaa 7 faysa u qaybiyey saxaabadii wuxuu ka soo bilaabay aalu beyti rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku soo xijiyey maartay dadkii badar ka qayb galay dagaalkii ka qayb galay muhaajiriinta ee ansaartii hore saasoo haddana xudaybiya wixii ka horreeyay ku daray wixii ka dambeeyay qayb ka dhigay dadka muslimiinta caa'ilooyinka ka dhigay oo ka diray qaar ka dhigay culimadii waaweyneed oo diinta fidinaysay waxba u khasisay ninka mushaaraad bixinta iyo nidaamka bangiga asagaa bilaabay nidaamka taftiishka muraaqabada waxa la yiraahdaa riqaab al-caam asagaa bilaabay maxamed ibn maslama al-ansari in la yiraahdo ayuu ka dhigay mufatish al-caamka oo dhaqaalaha iyo soo qiimeeya qaybta oo wardoonka xataa in walaada rag la diro dusha kala socdo say u dhaqmaayaan xogta ka soo aruuriya asagaa bilaabay dabcan waa istikhbaaraat islaamiya weeye oo aan dadka lagu dulminayn oo qofka aan been laga sheegayn oo aan xadgudub lahayn oo aan tajasus lahayn jaasuusnimo kuma jirto laakiin macluumaadka sida wax u socdaan ayuu xafiiskiisa rag u diyaarsaday walaada uu diray maxay la 17 walaaye ayaa xilligiisii oo magacaabo brasaabo magacaabay marka waxa waaye nidaamkaas marka idaariga ah ee dadkii hore culumtooda laga faa'iideystay ee laga turjumay oo dibbil oo injineeri leh oo idaara leh ee dawladuhu ay sii tadwiireen ilaa maanta dawladaha casriga ay ku dhaqmayaan waa nidaam ijtihaadka bani aadamka ku dhisan kitaabka iyo sunnadana ka hor imaan maayo wixii ka hor imaanayana xaaraan waayo laguma dari karo annaga dastuurka Soomaaliya maanta noo yaala waa dastuur aan wax kasta diinta ka hor imaanayo inaan ka saarno hadda akhrisan ku haynaa anagu jabtaradii la soo akhriyay oo dib loo soo saxay baan culimadii dul fadhinaa marka shalaan u fadhinay akhrinaynay waxa weeye wixii diinta ka hor imaanaya waa laga saarayaa wixii sax oo nidaamka idaarada nolosha lagu saxayna waa sax kitaabka quraankana inta la subaalishiisa la soo rogrogo laga qori maayo kitaabka quraanka si caam ah anaga noogu dhiibay fasal ahli aayadaha quraanka noogu tawjiihiyay wax kasto manfaacada ayaad qori kartiin ba fasax u haysanaa oo ilaahay diintiisa waafaqsan maqaasida shariicada aan ka baxsanayn akhlaaqda islaamka aan dhaawacin dawladda islaamka u khidmaynaya marka arrimahaas isu saaran oo saa loo tafsiiriyay ayaa inta qayb laga soo jaray ayaa waxa loogu talagalay in dadka lagu tashwiishiyo shaqadaasna asaga iyo xirtiisa ayaa ka shaqeeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa xasaan fidnada uu Soomaali ku haayo horta ilaahay qalbigiisa ha hanuuniyo hadda ka hor aniga masjidkiisan 4 ramadaan ka hor asagoo xiran oo xabsi ku jira aan uga duceeyay inta muxaadaro yar ka akhriyay masjidka ku yeelay sanadkii burhaan dhexdiisa markaas ilaahay waxaan u weydiiyay inuu xabsiga ka soo saaro ilmihiisa uu la ciido qalbigiisana uu ka saaro maaragtay takfiirkan iyo fidnadan waxaad moodaa qaybta ilaahay waa u aqbalayo maalintii 29 anoo masjidka hidaayo muxaadaro ku leh ayaa maalintaas gurigiisa la keenay maalintii ciida waa la ciidiyay waana isoo wacay waliba asagoo ii mahad celinaya laakiin tii dambe looma aqbalino waa maanta dhiigga dadka weli ku qubaysanaya nasiib daro anu waxaan rajaynayaa inuu maaragtay waa yaczuumo wuxuu yiraahdaa qadam ku sameeyna laakiin waa ka cudur daartay laano weli ma hubo inuu mowqifkiisii oo isbedelay marka ma jeclayn inaan rafraysto ninka asaga marka waxaan leeyahay horta Allah ku soo hanuuniyo xasaanow dhiigga muslimiinta addaadinaysid iyo iddaa al-mas'uuliyya amaam Allah waxaad sheeganayso ilaahay hortiisa aan ka mas'uulaya dad kala laaya ah na ilaahay ka soo hanuuniyo Cabdiraxmaan Cabdishakuurna uu cudur daaro maxaan ku iraahdaa dawladda Kenya waxa waajib ku ah siyaasigaas muwaadinka Soomaaliyeed aqoonyahanka ah in ay ninkaas dilaaga ah iyo cisaabada raacsan ee Kenya joogta inay ka ilaaliyaan dawladda Soomaaliya waajib ku tahay inay amniga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo cid kasta oo maaragtay ninkaas uu hadidayo inay amnigooda sugaan waajib ay ku tahay annagana Soomaaliya hadaan nahay madaxdeena waa muslimiin alxamdulillah madaxweynaha waa muslim ra'iisul wasaaraha waa muslim xasan waxa laga weydiiyay ma adiga annaga ayaa maaragtay shacabkeena waa muslim ciidankeena waa muslim baarlamaankeena waa muslim wixii ka khaldana waa laga saxayaa dalkeena khayr ayuu u socdaa cidna maaragtay alxamdulillah wiilashan aad adigu aad baadiyeysana hadaad awoodi kartid inaad dhex timaado hadaad rabto inta dhexdeeda timaado xataa isku soo xir mutafajiraad cid ka baqaysa ma jirto ayagana maaragtay cid ka baqi mayso inay soo hanuunaan ay dalkan dadkooda ku soo laabtaan muslimiinta oo fataawidada mudallilada baadida ah ay ka soo baxaan oo iyo islaamkii sax ay qaataan manhajul salaf salih ku dhaqmaan ilaahay uga baryayna maalin kasta qaar ka soo baxa kuwa qoraga la ordaaya iyo babada isku soo xiraayana cidna u jixin mayso qofka ilaahay
ugu talagalay inay ku dhintaan waa ku dhimanaysaa waana shahaado qoftii kaleetana waa iska celinaysaa yani cirinta dambena waxaa yeelan doona dadka soomaalida muslimiinta ah oo dalkan iskale oo diinta islaamka sax haysta ayaa yeelan doona culammada soomaalida ajillada ah ee aad cadownimada u haysid iyo siyaasiyiinta soomaalida wadaniyiinta ayaana insha allahu kaa gacan sarey doona